waxamaanta xarunta CID ee magaalada Hargeysa looga yeeray afayeenka xusbiga mucaaradka ee wadani Barkhad Jaamac Batuun intaasi kadib marka uu ka soo baxay xarunta CID ee magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay Hotel Riverside ee magaalada Hargeysa waxaanu faahfaahin ka bixiyay yeeritaankaasi looga yeeray CID-da waxaana uu yiri wad maasantii saxaafadda iyo shacabka Soomaaliland sharafta laba tobankii subaxnimo saaka waxa laga yeeray xarunta CID-da ama dambaarista ee magaalada Hargeysa waxa su'aalo badan laga weydiiyay guud ahaan dhaliilaha xukuumiga afka xusbiga ku hadlaya aan jeediyo runtiina wax meesha la yiraahdo dhibo aan kula kulmay meesha ma jirin taliyaha CID-da si sharaf leh soo dhaweeyay si sharaf leh su'aalo weydiiyay su'aalihii wuxuunba ku saabsanaayeen dhaliilaha aan u jeediyo xukuumadda kulmiye 6 sanadood u dambeeyay dabcan taanade waxaan u haysanaa shahaado inaanu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aanu sheegno wixii jawaabana waan siiyay wuxuunba aad dadka waxaan xantaynayaa oo iyaduna meesha ku jirtay arintii shalay aan ka hadlay ee ku saabsanayd anu deegaanka ka soo jeedo iyo dadkayga iyadana laftirkeedana su'aal bay iga weydiiyeen waxay igu dhahdeen arinta tiri madaxweynuhu wuxuu yiri midgaanka Airbaan isaga taaglaay maxaad iyadana ku cadeynaysaa iyadana cadeynteedii gacantan ka saaray waana u geeyay wayna iga qaadeen wax kale oo dhibo jirtaana ma jirto wuxuunba in muuqataa inay iska tahay intimidation ama cabsi gelin si mucaaradnimada kulul loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiye ay leedahay inta cimrigeega ka harsanna cadaalad baan anigu rabaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa